dhismaha masaajidka Saalixiyada magaalada Burco oo soconaya muddo sanad iyo badha ayaa maanta gabagaba ku dhowyahay dabaqii labaad ee masaajidkaasi marka indhahaagu qabtaan shaqada weyn ee ka socota dhismaha masaajidkani waxaad dareemaysaa inuu u baahan yahay caawimo aad u tiro badan oo laga sugayo ummadda muslimiinta meel kasta oo ay joogaan waxaana warbixin kooban oo ku saabsan masaajidkani iyo waxyaabaha uu u baahan yahay ka qabyada waqtigani injineerka ku hawlan dhismaha masaajidkani injineer Cabdiraxmaan iyo waliba guddiga gacanta ku haysta dhismaha masaajidka Saalixiyada magaalada Burco waxaanay dhamaanba u mahad celiyeen cid kasta ka qayb qaadatay dhismaha masaajidkani iyaga oo ugu baaqay ummadda muslimiinta inay wali sugayaan cidii ka qayb qaadan karta dhismaha masaajidkani oo u baahan in la dhameystiro intii ugu dambeysay ee dhismaha masaajidka Saalixiyada ee magaalada Burco iyagoo arrimahaasi ka hadlay waxa hadaladoodii kamid ahaa koobaad ama marka laga yimaado dabaqa hoose dabaqa ku xiga dushiisii oo shuban ayaan hadda taaganahay alxamdulillaah rabbil caalamiin muddo badan oo sanad iyo ama laba sano oo sanad iyo badh ah ayaa dhismuhu soo socday shaqada masaajidka ee lacag ururintiina in badan oo ka horeysay ayaa guddida odayaasha ah ee imka hareerahayga taagan ay wadeen laakiin dhismuhu sanad iyo badh buu socday sanad iyo badh buu ku dhow yahay oo wax yar ka dhiman yihiin meel wanaagsan ayuu marayaa alxamdulillaah rabbil caalamiin shubkii guud ahaan ama lafihii dhismaha way istaageen waxa harsan qurxintii iyo dhamaystirkii manaaradihii qaybtii waqafka ee masaajidku lahaa iyo wixii xagga manaarada xagga qudbada iyo doomkii weynaa ee fuuli lahaa masaajidka ayaa dhiman runtii hawl fara badan ayaa masaajidka waqtigiisii intii la dhisayay iyo intii ka horeysayba ay loo soo maray gaar ahaan guddida ilaahay khayr ha siiye hawl badan iyo dhabaradaayg badan ayaa loo soo maray dhismihiina imika meel wanaagsan ayuu marayaa ilaa hadda halkaa uu marayo wixii dhaqaale ahaa dadka dhisaya oo anigu aan ka mid ahay gacanta ayay ku hayaan wixii dhismaha ahaa laakiin waxa harsan oo fara badan waxa la wixii ahaa daaqadaha iyo albaabada samaynayo leh oo la wado oo la doonayo weliba in la sii wado oo ilaa laba dabaq oo kale lagu daro labada imika samaysan mooyaane waxaan leeyahay meel wanaagsan baynu marinaynaa waxaas oo dhanna waxa keenay ummadda isku tiirsanaanteeda iyo walaaltinimadeeda iyo dadka muxsiniinta ah ee khayrka jecel ee la baxay khayrkan la baxay iyo dadka wanaagsan ee ka shaqeynaya ee guddida ilaahay uga dhigay ee daacadda ah waxaanu leenahay cid kasta ay ka soo qayb gala waa mashruuc aakhira ah ayaanu leenahay anigu intaas aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa jazakumullahu khayr aad iyo aad ba gacan loo geystay masaajidkuna dalafiis waa dhamaadeen marka guudkii ku sareysay anaga taag waxa noo haray halka dabadayda anaga dambaysta hal dabaq baa haray oo dambe oo la saarayo oo dabaq saddexaad baa xaga la saarayo oo halkii library iyo dhulkii wax lagu akhrisanay weeyaan baaqaya ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan inay ka qayb qaataan dhamaystirka masaajidkani wixii tabarucaad ama taakuleynaya ku tari kara dayactirka masaajidkani inay ugu soo hagaajiyaan akoon lambarka telefoonada shaashada ka muuqda in wixii faahfaahinay intaasi dheer waxaad kala xidhiidhaan telefoonada shaashada ka muuqda waa barwaaqo aadan maxmed barwaaqo habi